الله وحوها كو براتم ولا لهنا فرسم يقانينتا والله ما شودي وان كان نحي meel yaro wali primitive waay markaasaan u tagay way ooyeen mar alaala markay arkeen Kenya ma tahay mis walaalkii waxa Kenya ah ma dhici karto wallahi Kenya ah markaas ay dhahin biyo ma naga cabaysaa heerka aan gaarsiin biyo ma naga cabaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحال يرهذا محمد شيخ إبراهيم علي وحان كل شيء مقالة وجير عرقان كينيا تدوات ميدي runtii waxaan ku barbaaray waa magaalada Baydhabo oo aan wax ku soo bartay ilaa iyo dugsi sare runtii inta badan wadanka Masar ku maqnaan jiray laakiin markii aan Kenya imid oo aan u soo yarbatay ayaan waxaan dhex galay dhalinyaradii aan TV kala hadli jiray marka waxaan arkay dhalinyaradii in badan oo xoog iyo xoolo iyo inta la soo galiyo waqti haddana jaamacadaha qalinka wax ku keenay waay oo haddana dul saar ah ama meelaha ka shaxaatamaya laakiin dharkoodu iska cad yahay markaas waxaan irin dhalinyaradan oo kuwa la hadli jirtay maxaad u qaban karaysaa markaan la sheekaystay oo aan ogaaday inay qalin wax ku raadanayaan ayaan waxaan ka dhaadhicay maadaama nin ahlu diin daaci aan ahay in muruqa oo la maalo xoog oo la maalo runtii la dhidido la shaqeysto gacantooda laga shaqeysay oo ka horeeyay qalinka ayaan xusuusiyay wayna qaateen runtii laakiin haddii aan dhaho muruqa waxa lagu soo saaro oo dhulka la qodo oo waxa la jabiyo oo waxa beeraha la galo badda la galo danda waxay ku leeyihiin dadka culimadii wax iyagiiba aysan qabanaynin ayay anaga noo sheegayaan markaas waxaan arkay waxaan doonay field walba oo aan ka hadlay ama majaal walba oo aan ka hadlay in aan aniga sameeyo inaan dharkii timo xirida anoo timo jara inaan timo jarida ku dhiirgeliyo anoo hilibkii gowracayo oo qalayo miisaamaya inaan dadka ku dhiirgeliyo beertii goobweyn waataan tagay anigoo falaya inaan ku dhiirgeliyo inaan kismaayo malayga anoo soo daba soo bixinay sidoo kale muqdisho hatta intaan tagay guriyihii ku yidhisay anoo caradii fargaaskii iyo nuuradii wixii isku dhax qasayo sameeynayo malaasay dadkii runtii waan u duceeyay inay iga dhax arkaan anoo magaca Kenyaawi oo culimadii metelaya dhexdoodii oo wax la qabanaya aad bay runtii ugu farxeen tina imika halka joogta inaad iscafisaan diyaar mootihiin inta diyaarka ah idinkoo raali iga هاي استاجانا جمعنا هتاجانا في walaalka runtii waa waxaan arkay ummadii inay jiran tahay inay isu wada haysato maxaa yeelay xamar wala isku wada haystaa Soomaaliya oo dhan wala isku wada haystaa dibadda wala isku wada haystaa intaas su'aalo ku imanaya ku dhacaya sheekh dhulkeeni maxkamad inta dhulkeena laga haystaa guriyana laga haystaa gaariyana laga haystaa naafufana laga haystaa xabiisadii waa buuxan marka waxaan sheeray maxaa qaban kartaa